Salaamu saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maalinlaha ah oo aan maanta kaga hadleyno baabi'inta heshiisyadii Imaaraadka Carabta ee u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan nagu soo biir si aan kula wadaagno xogo kooban oo maalinle ah. Mahadsanid. Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u baabi'iyay dhammaan heshiisyadii amni iyo difaac ee u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka isku tagga Imaaraadka Carabta. Go'aankan ayaa si buuxda u saameynaya dhinacyada amniga, dhaqaalaha, difaaca iyo sirdoonka. Heshiisyadan ayaa horey uga mid ahaa kuwa ay labada dhinac ku wada shaqeynayeen arrimaha tababarka, taageerada amniga iyo iskaashiga difaaca, waxaana lagu sheegay in baabi'intooda ay ku timid dana qaran iyo ilaalinta madaxbannaanida dalka. Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa si cad u sheegay in uusan dalka ka shaqeyn doonin heshiis ama iskaashi aan helin oggolaanshaha dowladda federaalka Soomaaliya, isagoo carabka ku adkeeyay inay wax kasta maraan hannaan sharci ah. Dhanka kale, ururka iskaashiga Islaamka ayaa isku raacay in Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ay wada shaqeynayaan, arrintaas oo ururku ku tilmaamay mid saameyn ku leh dalalka muslimiinta, isla markaana abuureysa walaac siyaasadeed iyo mid amni. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalin ka hor uu Imaaraad ka bilaabay inuu daadgurayo agab ciidan iyo shaqaalaha ka jooga gudaha Soomaaliya, kadib markii dowladda mamnuucday diyaaradaha militari iyo kuwa xamuul ee ka imaanaya waddankaas. Taas ayaa daba socotay warbixino sirdoon oo sheegay in diyaarad militari oo Dubai ay leedahay si aan fasax lahayn u soo gashay hawada Soomaaliya, taas oo waday hogaamiyihii golaha ku meel gaarka koonfurta Yemen Idris al-Zubaydi oo baxsay xilli la filayay inuu tago wada hadallo ka qorsheysnaa Sacuudi Carabiya. Xiriirka Muqdisho iyo Dubai ayaa hadda ku jira maalmihii ugu adkaa, iyadoo ay Soomaaliya si toos ah ula safatay boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ay ku taageertay hogaaminta arrimaha gudaha ee dalka Yemen.